Halkan waa shabakada warbaahinta JMN ee laanteeda af Soomaaliga. Wararka ugu doorka roon oo maanta idiin hayno waxaa ka mid ah safaaradda Itoobiya ee Koonfurta Suudaan oo ku baaqday in baaritaan qoto dheer lagu sameeyo dilka naxdinta leh ee askarta Itoobiya. Warshada diyaaradaha ee aan duuliye lahayn ee UK ayaa lagu weerari doonaa walaxo aan la garanaynin. Safiirka Iiraan ee u fadhiya Ruushka ayaa yiri Pezeshkian iyo Putin ayaa toddobaadka soo socda kulmi doona. Markaasi oo tafatiran ayaad ku maqli doontaan wararkeena maanta. Ilaa dhammaadka warkeena la socod habboon ayaan idin leenahay. Safaaradda Itoobiya ee ku taala Koonfurta Suudaan oo ku baaqday in baaritaan qoto dheer lagu sameeyo dilka naxdinta leh ee askarta Itoobiya ee Koonfurta Suudaan. Safaaradda Itoobiya ee Juba, Koonfurta Suudaan ayaa ugu baaqday mas'uuliyiinta in ay baaraan dilka labada askari ee ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta Itoobiya ee weerar rabshado wata. Dilkan ayaa dhacay Axaddii lasoo dhaafay 24-ka bisha Agoost 2026 Aga Bajute ee gobolka Jongel ee Koonfurta Suudaan, kaasoo dhaawacmay 7 qof oo ay ku jiraan ciidamada nabad ilaalinta. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ciidamada Itoobiya ay bartilmaameedsadeen kooxo aan la garanaynin iyagoo ka shaqeynaya howlgalka nabad ilaalinta UNMISS. Afhayeenka Qaramada Midoobay Stephen Dujarric ayaa sheegay in 3 askari oo ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta oo ay ku jiraan 2 askari iyo 2 boolis oo Koonfur Suudaan ah iyo dad rayid ah ay ku dhaawacmeen weerarka. Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres iyo madaxa UNMISS Anita Kiki-Gecho ayaa si xooggan u cambaareeyay weerarka. Gecho ayaa sheegay in weerarku uusan ahayn mid la aqbali karo, tallaabo kasta oo uu noqon karo dambi dagaal ah oo hoos yimaada sharciga caalamiga ah, isagoo ku booriyay mas'uuliyiinta ay khusayso in ay sameeyaan baaritaan degdeg ah oo dhammaystiran oo ay la xisaabtamaan dambiilayaasha. Safaaradda Itoobiya ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ay ixtiraam weyn u hayso askarta u adeegaysa nabadda iyo xasiloonida, kuwa xiran koofiyada buluugga ah, waxayna tacaasi u dirtay qoyska iyo qaraabada dadkii dhintay. Waxay sidoo kale ugu baaqday dowladda Koonfurta Suudaan in ay si degdeg ah u soo qabato dadkii geystay weerarka oo ay cadaaladda hor keento, sida laga soo xigtay xogta Qaramada Midoobay. 9 nabad ilaaliye ayaa lagu dilay Koonfurta Suudaan sanadkan oo kaliya ah. UNMISS waxaa la aasaasay 15 sano ka hor markii Koonfurta Suudaan ay xorowday ee Suudaan ka go'day madax bannaanida ay yeelatay. Waxaana xusid mudan Itoobiyana in loo yaqaano in ay ku biirisay ciidamo badan howlgalkan. Warshada diyaaradaha aan duuliye lahayn ee UK ayaa lagu weerari doonaa walaxo aan la garanaynin. Wasiir ku-xigeenkii hore ee arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa sheegay in warshada diyaaradaha ay weerari karaan walaxo aan la garanaynin kadib markii uu ballanqaaday in uu gantaalo siin doono Ukraine. Andriy Fedorov, arrintan ra'iisul wasaaraha UK Andy Burnham ayaa sheegay in uu u safri doono Mareykanka isagoo la socdo hogaamiyaasha kale ee Yurub si uu Trump ugala hadlo baahiyaha hubka ee Ukraine. Wasiirkii hore oo ah taageere dowladda Ruushka ayaa sheegay
TV-ga qaranka in Putin uu cadaadis saaran yahay inuu tallaabo ka qaado UK. Cadaadiska wuxuu ka imanaya saxafiyiinta, warbaahinta iyo dadweynaha, ayuu yiri wasiirkii hore. Markii la weydiiyey waxaa jawaab militari noqon doono, Fedorov wuxuu sheegay inay ka hor iman doonto shirkadaha soo saaraya diyaaradaha aan duuliye lahayn ee Ukraine. Wuxuu sheegay in shirkadaha aysan ahayn Ruush laakiin ay yihiin hay-ado aan la garanaynin. Hadalka wasiirkii hore wuxuu la xiriira wuxu uu yiri afhayeenka dowladda Ruushka Dmitry Peskov. Peskov wuxuu sheegay in go'aanka UK ah in ay gantaalo siiso Ukraine oo caqabad ku noqon doono dadaalada nabadda. Wuxuu intaasi ku daray in militariga Ruushka ay ururinayeen sirdoon si ay u go'aamiyaan ujeedadooda ah in ay burburiyaan warshadda gantaalada. Ra'iisul wasaaraha UK wuxuu yiri yaa marka hore bilaabay dabka. Taasi waa su'aasha. Burham wuxuu sameeyey booqashadiisii ugu horeysay ee dibadda ee Ukraine tan iyo markii uu xukunka qabtay. Wuxuu sheegay in waddankiisu uu xoojin doono taageeradiisii ee Ukraine. Safiirka Iiraan ee Ruushka Pezeshkian iyo Putin ayaa toddobaad soo socda kulmi doona. Kazim Jalil, safiirka Iiraan ee u fadhiya Ruushka, ayaa sheegay in Mas'uud Pezeshkian iyo Vladimir Putin ay toddobaadka soo socda ku kulmi doonaan magaalada Bishkek, caasimadda Kyrgyzstan. Inta lagu guda jiro shirka ururka iskaashiga Shanghai, sida uu sheegay safiirka Jalil, tani waxay noqon doontaa kulankii lixaad ee dhexmara madaxweynayaasha Iiraan iyo Ruushka tan iyo markii uu xilka la wareegay Mas'uud Pezeshkian. Kulankan la sheegay ayaa imanaya xilli Mareykanku uu ku dhawaaqay cunaqabateyn hor leh oo uu ku soo rogay dalka Iiraan, taasi oo qayb ka ah waxa uu ku tilmaamay duulaan dhaqaale oo ka dhan ah xiriirada maaliyadeed ee Iiraan caalamka la leedahay. Xogahayaha maaliyadda Mareykanka Scott Bessent oo xayiraadan cusub daaha ka rogay ayaa sheegay in cunaqabateyntu ay taabanayso hantida dijitaalka ah ee tiknoolajiyada, hababka duulista iyo gaadiidka badda. Wuxuu sheegay waddan kasta oo dhaqaale ahaan la macaamila Iiraan go'doomin doono. Dhanka kale, wasiirka dhaqaalaha Iiraan Ali Madanizadeh ayaa cunaqabateynta Mareykanka ku tilmaamay mid ay Teheraan ay filaysay tallaabooyinka isla markaana ay leedahay qorshayaal ay kaga hortagayso. Iiraan waxay sheegtay in marinbiyoodka Hormuz uu weli xiran yahay. Wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Iiraan Kazim Garibabdi ayaa sheegay in is-afgaradka Cumaan uusan ka dhigaynin in marinka Hormuz dib loo furay. Iiraan iyo Cumaan waxay mabda ahaan ku heshiiyeen marin ku meel gaar ah. Marinbiyoodkan la qorsheeyey wuxuu marin doona biyaha dhuleed ee Iiraan, waxaana labada dhinac sidoo kale ka shaqeynayaan sidii miinooyinka looga nadiifin lahaa. Teheraan waxay dib u furista ku xiraysay Mareykanka. Iiraan waxay doonaysaa in Washington ay fuliso ballanqaadyadii hore, isla markaana wax ka qabto walaacyada amni ee Iiraan ka hor inta aanan maraakiibta si caadi ah loo ogolaan. Dhaqdhaqaaqa maraakiibta weli aad buu u hooseeyaa. Waxaa la sheegay in tirada maraakiibta ganacsi ee ka gudbaysa Hormuz ay aad ugu yar tahay.
celceliskii maalmihii horey Maraykanku wuxuu leeyahay xaaladdu waxay ka duwan tahay. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in ciidamada Maraykanka ay miinooyinka ka saareen wadada weyn ee maraakiibta, balse Iiraan weli ma aqoonsan in marinka si buuxda dib loogu furay. Qiimaha shidaalka ayaa markii hore hoos u dhacay kadib rajada laga qabay wadahadallada Iiraan iyo Cumaan, laakiin hubanti la'aanta ku saabsan Hormuz ayaa weli jirta. Gunaanad, heshiiska Cumaan waa tallaabo suuragal ah oo la qaaday dib u furista Hormuz, balse macnaheedu ma aha in marinka si rasmi ah dib ugu furmay. Arrinta ugu weyn ee weli taagan waa khilaafka u dhexeeya Maraykan iyo Iiraan.